aynu ku bilownay maamulka Mahadaay oo sheegay dawlad la'aan ka jirta isbitaalka degmada. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Saalax Fulay Xaaji oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in isbitaalka degmada ay ka jirto dawlad la'aan isagoo oo tilmaamay in xilligan aysan degmada ka jirin goobo caafimaad oo lagu tacaalo bukaanada. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa walaac ka muujiyay cudurro soo rita dadka deegaanka maadaama lagu jiro xilliga kuleelaha. Waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda hal qof uu uga dhintay cudurka shuban biyoodka tuulada Mareeri halka laba kalena xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Saalax Fulay ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Hirshabelle ugu baaqay in dawlad la soo gaarsiiyo isbitaalka degmada Mahadaay oo dad danyar ah ay ku tiirsanayeen, isagoo intaa ku daray in hadda dadka xanuunada ay soo ritaan loola cararo magaalada Jowhar. Degmada Mahadaay ayaa waxaa hoos tagay in ka badan 40 tuulo oo dhammaantood aanan lahayn goobo caafimaad oo ka jawaabi kara adeegyada kala duwan ee caafimaadka.